arkayaa hor fadhiya hooyooyin badan oo da 70 80 xanuunsan oo jooga qaxootiyadii oo jooga meel runtii nabad aanay ka jirin madfuuc dhacayo meel aan hooyadii aanay heli karin wax u adeega aanay heli karin wax dabka xataa u shida aanay heli karin wax biyo u keena bal hooyada aanay heli karin biyo nadiif oo ay cabto dhoobada ay cabaysa meel harsata aanay heli karin cirkaasaa u saqaf ah oo guri ah dhulkaasaa u sariir ah dhul ayay jiiftaa waxaan arkaa hooyo miskiin ah oo gurguuranaysa in ay dabshidato in ay soo qaadato weel yar in ay soo qaadato jikada ay gasho aw ciyaalkeedii 5 ama 10 ayay dhashay aaway xaggay ka baxeen orobay joogaan waa raaxaysanayaan gabdhay u adeegayaan reer kale u shaqaynayaan miskiintii dhashayna waa taas halkaasay fadhida وبالوالدين إحسانا gaari qurux badan oo 1 milyan la gadaayo ku socda hooyadiina guriga uu dhisi laayahay darbu u xiri laayahay way arxadan tahay hooyadii way qaawan tahay markaad fiirisid sawirkeeda waxaad moodaa waagii dhagxaanta inay joogtaan moodaa waagii cawska iyo qashinka la saaran jiray cawrada lagu asturi jiray inay joogtaan moodaa hooyadii iyadiina gabadhu waxay xiran tahay dhar xariir ah daabkii meelay dhigta laadahay ilmaheeda waa kuwaana oo sida u burburan yihiin u qurux badan yihiin wadiyaab